xalqadeena arrimahan uga hadli doono waxaa kamid ah ma kamid tahay dadka sida aadka ah u isticmaala earphoneska oo waliba codka aad u dheereeya dhagabeel ayaad khatar ugu jirtaa daraasad argagax leh oo soo baxday sidoo kale waxaan ka hadli doonaa 10 sano oo soo socota bini aadanka oo la qorsheynayo dayaxa korkiisa in ay degaan oo nolol caadiya oo tan dhulka la mid ah ay ka samaystaan dayaxa dushiisa waa dayaxa caadiga ah sidoo kale waxaan ka hadli doonaa تليفونكي لو دسوقي عجيب كها S23 Ultra ee shirkadda Samsung oo war iyo faahfaahin ay ka soo yeertay xalqadeena ayaan u hadli doonaa waxaan saaxiibayaal si xushmad iyo qadarin ku jirtin ka codsanaya haddii aad ka mid tahay dadkii hore u tahnaa kanaalkeenan in aad muuqaalkan like saartid haddii aad hadda nagu cusub tahayna in aad like iyo subscribe aad noo saartid si ay kuu soo gaaraan akhbaaraadka tiknoolajiyadda ee dunida daafaheeda ka dhaca WhatsApp ayaa soo kordhiyay arrimo cusub oo dhowr ah WhatsApp oo waayadan bogaday updating iyo isbedelo waaweyn ayaa soo kordhiyay 3 arrimood tan koowaad waa inaad awood u leedahay adigu inaad fariin isku diri kartid sida aan la socono WhatsApp-ku horay uma lahayn sida Telegram-ka iyo Messenger-ka oo kale inaad fariin isku diri kartid adigu balse hadda ayaa lagu soo kordhiyay arrintan oo dad badan ay wada sugayeen inaad fariin isku diri kartid ayaa ka caawinaysa inaad dokumentiyada iyo wixii kale ee aad rabto inaad kaydsato halkii aad qof kale ama group u diri lahayd inaad adigu isku soo dirsato oo halkaas ay kugu kaydsamaan sida Telegram-ka oo kale arrinta labaad ayaa ah in WhatsApp-ka lagu soo kordhiyay qayb lacag ah oo qofku lacag ayuu iska bixinayaa waxaana loo badinayaa in ay noqon doonto qaybtaas lacagta ee WhatsApp-ka WhatsApp Business Premium-ka oo hadda tijaabo ku jira sidoo kale WhatsApp-ka ayaa soo kordhin doona ads iyo haysiin dad badan ayaa dhaliilay tilaabadan oo WhatsApp-ku adska ku soo kordhiyay iyagoo sheegay in arrintaas ay hoos u dhigi doonto shacbiyadda abkan aadka loo isticmaalo arrinta saddexaad ee u dambaysa ayaa ah in WhatsApp-ku soo kordhiyay pool ama in aad samayn kartid afti ururin halkii aad yacni qofka ama groupka aad weydiin lahayd su'aalo fara badan oo isku dhex yaacsan hadda waxaad awood u leedahay in aad dadka ka qaado pool ama afti ururin waliba afti ururin aad u nidaamsan tusaale ahaan waxaad leedahay arrintaas iyo arrintaas sidee ayaa u aragtaan ha iyo maya ayaad kala siinaysaa dadka deedna halkaas ayay ka codeynayaan halkii ay soo qori lahaayeen oo maanta oo dhan ribalaa la isu gelgelin lahaa oo hawsha ay aad u dheeraan lahayd poolka yar iyo afti ururintaas cajiibka ah ee WhatsApp-ku soo kordhiyay ayaad samaynaysaa telefoonka cusub ee Galaxy S23 Ultra oo faahfaahin dheeriya ka soo baxday iyo xilliga saxda ah ee suuqyada caalamka soo galayo sida aan la socono sanad walba waxaa la wada sugaa oo isha lagu hayaa silsilada cusub ee telefoonada Samsung ee S shirkadda Samsung ayaa isku diyaarinaysa in ay suuqyada caalamka soo galiso telefoonkeeda cusub ee S23 telefoonkan cusub ayaa 3 qaab suuqyada ku soo galaya ama ku imaanaya waa S23 iyo S23 Plus iyo ugu dambeyn S23 Plus Ultra S23 Ultra waxa uu kugu shaqeyn doonaa charger wireless ah sidoo kale fast charging ayuu ahaan doonaa isagoo awoodda chargerkiisu noqon doonto 45 watt S23 wuxuu wadan doonaa qalinkii yaraa ee cajiibka ahaa ee loo yaqaano S-Pen-ka waayahay goormay teleefoonadan S23 ah ee aadka loo wada sugayo suuqyada caalamka soo gali doonaan waxaa la saadaalin doonaa in ay suuqyada caalamka soo galaan bisha February ee sanadkan soo socda bilowgiisa yacni wax yar ayaa naga xiga bishan iyo bisha ku xigta baa naga xigta robot qof oo kala ah ayaa la soo saara maanta adduunyada iyo shirkadaha waaweyniba waxay ku tartamaan samaynta robotyada ku shaqeeya artificial intelligence-ga waxaa la isku dayaa waxyaalo badan oo dadku qaban jireen in ay maanta robotyadu qabtaan waliba shirkadaha waaweyn waxay isku dayaan in shaqaalaha badan ee hadda u shaqeeya ee ay lacagta siiyaan ay cayriyaan kuna bedelaan robot aan daalayn kaasoo waliba awood u leh in uu hal robot qabto shaqadii ay qaban lahaayeen 10 qof oo lacag ku shaqeynaysa shirkad Japan laga leeyahay oo la yiraahdo West Japan Rail Company ayaa qorsheynaysa in ay soo saarto robot aan laga aqoon bini aadamka caadiga kaasoo qabanaya shaqooyinka khatarta ku ah bini aadanka robotkan oo ah nooc ugu horeeyay ee sidaan ugu eg dadka ayaa leh 2 gacmood sidoo kale wajiga hore waxa uu ku leeyahay 2 indhood oo kaamirooyin ah oo halkaas ugu xiran food hore ah
labadan indhood ee kaamirooyinka ayaa waxaa maamulaya qof kale oo halkaas ayuu ka hagaya. robotkuna sidii dadkii ayuu wax u arkaya. robotkan ayaa loogu talagalay inuu qabto howlaha khatarta ku ah bini'aadanka sida xiridda iyo nadiifinta fiilooyinka baalayaasha korontada ee sarsare ee khatarta ah ee maasadu ay ka kici karto bini'aadankuna ay dhibaatada ku gaari karto. dhanka kale war argagax leh oo robotyada ku saabsan ayaa isbuucan kasoo yeeray waddanka Mareykanka. booliiska magaalada San Francisco State California ayaa qorsheynaya inay u ogolaadaan robotyada in ay dili karaan qofkii laga shakiyo ama dambiilaha laftirkiisaba. yacni robotkii ayaa loo ogolaanaya shaqadii bini'aadanku qaban lahaa qofkii laga shakiyo ama dambiilaha. waa arrin argagax leh. ka waran haddii systemka uu robotku ku shaqaynayo ciladoobo oo dad aan waxba galabsan oo halkaa ku laayo. qaybo ka mid ah saynis yahanadu waxay muddo badan ka digayeen in la gaari doono maalin robotyadu ay gumaysan doonaan bini'aadanka. waxaad is leedahay balaayadii meeshii ay ka bilaaban lahayd ay saynis yahanadu sheegeen ayaa la maraya. idinkuna waa laga yaabaa inaad marar badan daawateen filimaan fara badan oo ka sheekeynaya dagaal mustaqbalka dhex mari doona robotyada iyo bini'aadanka iyo basharkana halkaas lagu xasuuqi doono oo robotyadu ay adduunka qabsan doonaan intii ay faraha ka baxaan systemkooda. ugu dambeyn waxaa la shaaciyey qiimaha telefoonka ay soo saartay Xiaomi ee Xiaomi 12T. silsilada telefoonada Xiaomi ee Xiaomi 12T iyo Xiaomi 12T Pro ayaa ah telefoon cusub oo ay soo saartay shirkadda Xiaomi. telefoonkan ayaa gadaal ku leh kaamiro xoogaa dheer oo ka kooban 3 xabo. kaamiradiisa weyn ee hore waa 200 oo megapixel. labada kaamiro oo kale iyagu waa 8 megapixel iyo 2 megapixel. halka kaamirada selfiga ama video callinga loo isticmaalo ay tahay 20 megapixel. yacni telefoonkan kaamirooyinkiisu aad ayay u tayo sareeyaan. shaashada mobilkan ayaa ah nooca loo yaqaano OLED-ka. miqyaaska shaashadiisuna waxa weeye 6.67 inch. screen-kiisuna waa 120 Hz. wuxuuna kugu shaqeynayaa mobilkan fingerprint. RAM-kiisu waxa weeye 8GB halka maskaxdiisuna ay tahay 256GB. fast charging ayuu kugu shaqeynayaa mobilkan. awoodda baterigiisuna waxa weeye 5000 mAh. 3 midab ayaad ku heli kartaa telefoonkan waana madow, blue iyo midab qalin ah. waayahay meeqa weeye marka telefoonkan cajiibka ah qiimihiisu. Xiaomi 12T ayaa wadamada qaar ku yimid lacag gaaraysa $609 halka Xiaomi 12T Pro qiimihiisu uu asna wadamada qaar ku yimid $740. telefoonkan weli Soomaaliya ma soo gaarin mana garanayo xilliga uu soo gaari doono. sidoo kale ma sheegi karo qiimaha uu Soomaaliya ku soo gaari doono. sidaan la socono Soomaaliya telefoonno badan oo dunida daafaheeda laga isticmaalo iyo shirkado waaweyn oo telefoonno soo saara ayaa telefoonadooda Soomaaliya soo gaarinba. shirkadaha Soomaaliya telefoonada soo gaarsiiya waa shirkado dhowr ah laakiin shirkado badan oo adduunka telefoonadooda laga isticmaalo Soomaaliya maba soo gaaraan. ma ogtahay in 10 sano ee soo socda dhulkan aan deganahay ay dad badan isaga guurayaan una guurayaan dayaxa. dayaxa ayay degayaan oo ku noolaanayaan. hay-adda NASA ee waddanka Mareykanka ee arrimaha space-ka iyo hawada sare qaabilsan ayaa sheegtay in markaan laga gudbi doono qorshayaashoodii hore. oo maxay ahaayeen qorshayaashoodii hore ee ahaa in dayaxa la tago oo laga soo noqdo loona gudbi doono markaan sidii dayaxa loogu kor noolaan lahaa oo nolol tan dhulka la mid ah looga yegleeli lahaa dayaxa dushiisa. NASA ayaa sheegtay in 10 sano ee soo socda uu qorshahoodu yahay in dayaxa dushiisa laga asaaso xadaarad basharku leeyahay oo halkaas ay si caadiya u degaan dadku. 2 asbuuc ka hor NASA waxay dirtay dayax gacmeed lagu magacaabo Artemis 1 kaas oo sahmin iyo tijaabo u ah qaabkii dadka caadiga ah loo geyn lahaa dayaxa. 2024 ayaa isna mashruuca Artemis 2 qorshihiisu yahay in dadka la geeyo meeraha dayaxa. halka mashruuca ugu dambeeya ee Artemis 3 oo ku beegan 2025 la qorsheynayo in dadkii ugu horeeyay dayaxa si toos ah looga dejiyo. bini'aadanka
inuu dayaxa tago waxa ugu dambeysay sanadkii 1972 markaas oo dowladda Mareykanku ay dayaxa dushiisa ka degtay walow arrintaas ay dad badan shaki ka muujiyaan ilaa haddana ay su'aalo ka keenaan. sanadkii hore ayaa waxa bilowday wax loo bixiyay tartanka bilyaneerada ee hawada sare ama space-ka kadib markii labada bilyaneer ee Jeff Bezos iyo Richard Branson ay safar gaaban ku tageen space-ka. mustaqbalka dhow ayaa waxa la rajaynayaa in uu bilaaban doono dalxiis ay dadka hantida haystaan ku tagi doonaan hawada sare iyo space-ka. dalxiiskaas wuxuu noqon doonaa suuq lacaga fara badan laga samayn doono sida ay saadaalinayaan dhaqaale yahanadu. 1 bilyan oo dhalinyaro ah oo ku kala nool dunida daafaheeda ayaa khatar ugu jira in ay dhagabeelaan sababo la xiriira earphoneska, earbuds-ka iyo headphoneska ay adeegsadaan. daraasad uu sameeyay joornaal cilmiyeedka la yiraahdo BMG Public Health oo uu ku sameeyay dadka da'doodu ay u dhaxayso 12 jir ilaa 34 sano jir ayaa lagu ogaaday in dhalinyaradaas markii ay isticmaalayaan waxyaalaha dhagaha la gashto ee wax lagu dhageysto in ay ku dhageystaan waxyaalahaas volume aad u heer sareeya. waxay ugu daran tahay dhalinyaradu markii ay joogaan meelaha buuqa badan ee aan wax laga maqli karin iyagoo codka earphoneska aad u dheereeya si ay wax ay dhageysanayaan u maqlaan taas oo sababta in maqalkooda uu dhaawac soo gaaro. waxa loogu baaqay dawladaha in dhalinyaradan musiibadan daran iyo dhagabeelka wajahaya ay wax ka qabtaan oo ay gurmad u fidiyaan wacyigelinna ay u fidiyaan. dhanka kale hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in hadda adduunyada ay ku nool yihiin 430 milyan oo qof oo dhagala. bayna haddii aad tahay qof dhalinyaro ah fadlan ka taxadar qaabka aad wax ugu dhageysanaysid earphoneskaga. haddii aad joogtid meel buuq badan ha is oran si aad u maqashid wax aad dhageysanaysid codka aad u dheerayso balse isku day in aad wax ku dhageysatid meel degan volume-kana aad hoos u dhigtid markii aad isticmaalaysid earphoneskaga ama earbuds-kaga ama headphoneskaga. xalqadeeni maanta saaxiibayaal intaas ayay ku eg tahay. waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in haddii aad kanaalkayga hore u taxnaydeen aad like ii saartaan muuqaalkan haddii aad hadda ku cusubtihiinna in aad like iyo subscribe ii saartaan si aad ula socotaan akhbaaraadka iyo wax walba oo tiknoolajiyadda ka cusub oo dunida daafaheeda markaas ka jira ama laga hadalhayo. waa mahadsantihiin saaxiibayaal guuleysta nooli kulantee waa noo asbuuca soo socda iyo xalqad kale oo cajiib ah.